بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada kanaalka Boostpix maanta waxaan ka hadlaynaa sida ciwaanka ka aragtaan buuggeena ama e-book aan soo saaray oo la yiraahdo magaciisa sidee online-ka lacag looga sameeyaa sirta caalamka digitalka. buugga marka waxaan rabaa inaan ka bixiyo xogaa yar oo faalayn ah si loo dadka ma taqaanaa aan wali buugga aragay gudihiisa waxa weeye ama waxa ku dhex jira buugga ay u fahmaan ama fikir uga qaataan. marka mowduuc maanta sidaas weeye kusoo dhawaada kanaalkeena Boostpix. waayahan waxa weeye iska mashquulay oo idinma samayn muuqaalo. waxaan jeclahay inaan hadda ka bacdi samayno taxanayaal fiican baan soo wadaa insha soo dhawaada asxaabta mar kale waxaan hadda dul tagnay buuggii baan dul tagay. buugga marka la soo degtid dabcan buugga koowaad buuggu waa jaldiga buugga weeye ama coverka magaciisa waa sidaad ujeedaan sidee online-ka lacag looga sameeyaa sirta caalamka digitalka ah. markii buugga ku xiga waxa weeye xuquuqda. labada buug ku xigo kalena waxa weeye contentiga ama buuggu wuxuu ka kooban yahay. marka buuggu 11 cutub weeye 11 cutub. marka cutubka koowaad waxa weeye lacagta iyo nolosha. wuxuu buuggu sharaxaad ka bixinayaa lacagta iyo nolosha xasaasi ahaan sida ay isku sidkan yihiin ama xiriirka ka dhaxeeya. sidoo kale cutubka labaad wuxuu faahfaahin ka bixinayaa labada caalam oo kala ah caalamka digitalka iyo caalamka caadiga ah sida ay kala yihiin. cutubka saddexaad waxaa laga hadlayaa ganacsiga online-ka ah. ganacsiga waxaa naqaanaa caadiya oo offline ah. cutubkan waxaa ku faaqidi doonaa ganacsiga online-ka ah. cutubka afraad waxa guud mar lagu sameeyaa hababka online-ka lacagta looga sameeyo si guud. cutubyada dambe oo dhan laga bilaabo cutubka shanaad waxaa la faaqidi doonaa lasii faahfaahin doonaa cutubkaas afraad hababkii lagu sheegay ayaa mid loola baxaya. cutubka marka shanaad wuxuu noqonayaa macluumaad abuuris dukaan digital ah. cutubka toddobaad oo ah suuqeynta internetka. cutubka sideedaad oo shaqaalanimada xorta ah waa mushtarka iyo maalgashiga dhisida software adeeg bixiye ah. iyo cutubka 11aad oo ah hababka kale ee online-ka lacagta looga sameeyo hababka kale oo aan ahayn ilaa cutubka shanaad ilaa cutubka 10aad kuwa aan uga hadalnay. kadib gabagabo buuggu waa intaas waana 140 bog. waa e-book aad ku akhrisan karto taleefankaaga. marka waxaan tagaynaa sharaxaad kooban oo ku saabsan cutubyadaas. waxaan tagnay jamboardkeena tagaynaa. kadib waxaan bilaabaynaa buugga waxaad ugu tegi doontaa marka cutubka shanaad waa macluumaad abuuris oo ah content creation. intaana marka hoos iman doontaa waxaa buugga marka akhrisid marka waxaad fahmi doontaa horta waxa laga wado macluumaad abuuris ama content creation. sidoo kale waxaad baran doontaa hababka loo sameeyo waxyaabahan bloggingka, youtube-ka, online course, e-book, podcast, sida loo sameeyo toolska isticmaalisid website-yada wax kasta sida u dhisisid baa lagu tusayaa. marka qofkii u baahan inuu meeshaan ku takhasuso ama content creation-ka lacag ka sameeyo waa habka ugu weyn. waxyaabahan oo dhan waa lagu tilmaamaya waad baran doontaa. links baa xitaa ku jira buugga marka akhrinaysid oo si aadan hadhow website khaldan aad u aadin website-yada saxda ah iyo wixii wax kastoo legit ah sida u samayn lahayd. sidoo kale cutubkan waxa weeye kan lixaad oo ah dukaan digital ah. marka dukaan digital ah waxaa hoos imaanaya oo aan buugga ku sharxa ka soo qaatay shantan ugu waaweyn oo ah online market ama online shop inaad dhisatid, inaad samaysid Amazon affiliate store, inaad dhisatid Amazon FBA, dropshipping, drop surfacing. marka shantani waxa weeye waa
online store-ka ugu caansan yihiin waana 5 hab oo shaqeeya oo lacaga waaweyn laga sameeyo malaayiin dollar baa laga sameeyaa waxaan dhan aan buuga ku qoray qofkii markuu si fiican u dabaqo oo u fahmo oo barto waana wax shaqeeyo legit ah dhammaan waxa buuga aan kusoo qaatayna waa hababka saxda ah ee online-ka lacagta looga sameeyo marka laga tago scam iyo in lagu dhaca iyo gambling iyo in khamaar iyo waxa marka laga soo tago dadka online-ka lacagta ka sameeya meel kasta ha joogeen hababkaas lacagta online-ka looga sameeyo aan soo qaatay waana waxayna ka bilaabataa cutubka 5aad cutubka 6aad cutubka 7aad baan hadda maraya cutubka 7aad waxaan ku baran doontaa marka suuqeynta internetka sidee loo sameeyaa marka suuqeynta internetka online marketingka iyo waa kala duwan yihiin suuqeynta caadiga iyo offline-ka marka haddii aad baratid marka inaad wax suuqeyn kartid waxaad iibin kartaa online-ka waxaad ku iibin kartaa wax kasta ama alaab adigu aad leedahay ahaato ama alaab aadan lahayn ha ahaato marna haddii aad wax suuqeyn kartid aad wax iibin kartid that's enough waa lacag waa samayn kartaa marba hadda internetka dhexdiisa wax ku iibin kartid waa guarantee marka si aad marka internetka wax ugu suuqeysid ilaa 11 waxaa loo baahan yahay xirfadood inaad fahantid oo aad kala baratid dhammaantood waxay ugu tegaysaa buugga iyagoo la faahfaahinayo aadna marka aan u gudubno cutubka 8aad cutubka 8aad waxa weeye shaqaalanimada xorta ah ama freelancing marka isagana waa qayb dhan oo ka mid ah hababka online-ka lacagta looga sameeyo website-yadan hadda tusaale kale Fiverr, Upwork oo kale waa meelaha ugu caansan oo shabakadaha ugu caansan oo intii aad tagtid aad ka shaqaysan kartid oo aad helaysid contract ama shaqo markaas u baahan in la qabto lacagtaada qaadanaysaa shaqada qabanaysaa wax aad taqaanid waxay doontaa noqdeen xirfad aad leedahay marka sida loo sameeyo iyo wax oo dhan waxaad ugu tagaysaa cutubkaasi ugu tagaysaa 8aad chapterka 9aad waxa ku saabsan yahay baayac mushtarka iyo maalgashiga online trading and investing oo ah baayac mushtar iyo maalgashi maxay ku kala duwan yihiin buuggaad ugu tagaysaa sidoo kale maxaa weeye wax laga baayac mushtaray ama waxa la maalgashanayo waa intaan 5tan weeye 5taanina waxay kala yihiin waxyaabaha la yiraahdo financial assets-ka marka sida loo sameynayo iyo waxyaabaha meelaha qaarkood caanka ka soo qaadanayno examples ka bixinayno forex oo kala kamid ah cryptocurrency oo kala kamid ah meelaha inaad aan ka soo qaato tusaalayaasha dhamaantood sida loo sameeyana buugga waxaad ugu tagaysaa isla buugga isla cutubka 9aad cutubka u dambeeya software adeeg bixiye ah cutubka u dambeeya ma aha sorry laakiin waa cutubka u dambeeya marka la fiiriyo 5 hab 6 hab marka la fiiriyo cutubka 6 u dambeeya cutubka 10aad cutubka 11aad wuxuu noqonayaa hababka kale ee online-ka lacagta looga sameeyo waa sida buugga ku soo aragteenba cutubka 10aad marka wuxuu qaabilsan yahay software adeeg bixiye ah sida loo dhisaa software as a service waa model marka aan caadi ahayn qofkii fahma oo software dhisi kara ama software soo iibsan kara hadda tusaalahan oo kale internetka waxaa jira wax la yiraahdo meelo shabakada iyo laga soo iibsado software scriptigiisa dhisan adigu marka magac loo baxaysaa kadib domain name soo iibsanaysaa waa host garaynaysaa kadibna saasaad dadka waxa uga qaadaysaa subscription ama lacag kale ah marka waxaad dhisaysaa PHP script bay helaysaa code-kan waxa la yiraahdaa marka shabakada ugu caansan oo laga soo iibsado software-ka marka wadada la marayo waxa dhan buugga u tagaysaa haddii marka halkan soo gaartay dabcan buugga wax uu ka kooban yahay waan dhexgalay waana fahantay laakiin buugga marka akhrisid baad wixii si fiican u fahmi kartaa hababka oo dhan iyadoo la faahfaahinayo iyadoo la sharxayo linkyadii dhammaan wixii subtopic ee wixii hoos imaanayo dhan meesha ay ku qoran yihiin waxayna marka hadda in xasuusiyo horta online-ka in lacag laga sameeyo qof kasta ayaa u baahan oo ama shaqaale ahaw ama arday ahaw ama shaqaale aan ahaw laakiin dadkii waa wada cabsanayaan oo siiba Soomaalidii inta badan inaad ka dhaadhicisid baa waqti qaadanaysa in online-ka lacag laga sameeyo qof kasta mindset-ka oo dhan baa xoogaa negative ah su'aalaha inta badan lagu weydiinayo dadka hadda ila soo xariira aad bay mataqaanaa negative-ku ugu badan yahay marka waxaan jeclahay marka inaan arrintan lagu baraarugo oo dadku ay si fiican
qofba meel xooga saaro qofku wuxuu ku fiican yahay hadalka yaan ku badin buuggu waa diyaar dad badanna waa iibsadeen dad badanna waa ka faa'iideen adigu haddii aadan weli iibsan dabcan waxaan dhigayaa description-ka hoosaan dhigayaa whatsappka aad kala soo xiriiri kartid whatsappka aad ka iibsan kartid description-ka hoose ayaan dhigayaa kadib ka faa'iidayso waa ebook aad taleefankaaga ku akhrisan kartid ama computerkaaga ama any device ay haysatid qiimihiisuna aad buu u jaban yahay waan islaamaya dhammaan asxaabta muuqaalkan waxaan ku talagalay inaan ku faahfaahiyo buugga si hadhow qof kasta oo raba inuu xoogaa macluumaad ka helo buuggan si uu muuqaalkan u daawado haddii aadan horey noogu soo biirin ama aad ku cusub tahay youtube-keena kanaalka fadlan subscribe saar muuqaalkana like garee si aad muuqaaladan oo kale iyo taxanayaasha dambe aan soo wadnay aad ula socotid mahadsanidin